الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكن شيء معايا إليه فقشين إنه لو يسعب كينو يريه وحوين يسألون إن هذا يستجسنه. إن شاء الله يسود وهذا ويا ضعف. waxaan leeyahay walaalayaal aniga ergaabo waxa igu horeysay iyadoo odagii abahay ahaa Allah u naxariistay ila socdo oo aanu sifo baacay mustariya ku nimi meesha markii sanadku waa 1952 waxay la tahay dadka halka maanta fadhiya in yar ayaa jirtay barigaas berigaas aanu bacmitirnimo halkan abhay harag badan ka iibsaday oo nin la odhan jiray Allah u naxariistay isagana cawad baraaru wakiil uga ahaa magaalada ayaa berigaas ay igu horeysay ergaabo mala 4 jeer oo kalena waan imi 2 jeer anigoo xisbigiisa SNL ka socda marna anigoo maxay prime minister oo safar dheer ku soo maray dalkooda marka aniga ergaabo iyo cusba dadkeedana waa isnaqaanaa waxaan leeyahay waan idinka gudoomay sida wanaagsan ay soo dhaweyseen waxaan idin sheegayaa oo aanan siyaasadiga ahayn oo aan waxba xeeradii ku jirin aniguna niyadayda sida ay soo dhaweyseen si like baa idin qabaa oo niyadaydu ku hayaa oo aan maxay hayday idinla weyntihiin oo idinku hanweynahay marka inta haddaan soo dhaafo hadalkii aan maanta ku yiri meesha inaan idinraaho wuxuu u badan yahay taariikhna ka warramo iyo waana aan soo jeediyo iyo ballamo aanu shalaytoona odayadii aanu wada shiray xuqaashii salaadiintii xuqaashii iyo waxgaradkii aanu wada shiray ballamo aanu kala qaadanay ayaan doonaya inaan wax idinka sheego horta marka ugu horeysa taariikhda haddii aan la xusuusan dhib baa ka timaada wixii ay keento daannaana haddii aan iyadii dib loo raacin oo la raadinin looma helo dawo waxayna soo dhaafay 30 sano oo wax afka qalaad lagu yidhaaho divide and rule qayb iyo dabeetana xukun lagu waday oo dadkeena siyaasadaas lagu dhex dhigay caro iyo xuntan iyo colaad iyo caro labadaa dhinaca dadka loo qaybinayay midna looma danaynaynin ee waxaa dan lagu watay danta la watay waxay ahayd in dadkan la isku jeediyo dabeetana wixii dan laga lahaa laga dhamay inta iyaga la isku jeediyo wixii dan lahaa laga dhamay dadkii loogu beesheegayay waa laydin danaynay waxaan maanta weydiinayaa haddii laydin danaynayay dantii waxa laydinku danaynayay dhaxalkeedii me dad loo danaynayay waa jira oo agtiina oo dhaxalkii danayntaa loo danaynayayna muuqdo oo arkaysaan maanta oo u baahan tihiin laakiin aydaan haynin aan marti ka tihiin haddii laydin danaynayo marka halkan laydinku danaynayo dantii maanta taa ka muuqata raadkaa muuqda ee agtiina ha idiin muuqda maantana ee aad og tihiin ayaa halkana ka muuqan lahaa oo idinkana idinka muuqan lahaa cid loo danaynayay labadiinni geesooda layska hordhigayay layska horkeenayay mid loo danaynayay ma jirin ee dan la leeyahay ayaa lagu fushanayay waana lagu fushado 20 sano ayaa lagu fushaday oo laga dhaansaday oo laga dhigtay oo lagu dheef sano ka bacdi markaas waxaan idin weydiinayay
وأن أسوق قاضي تاريخ سببت أن أسوق قاضية سببت أنه كبعد وقول رادكي اسكدركي iyo qaybiskii muxuu weli u sii muuqda dadka waxay yiraahdaan Soomaalidu qaarna iyaga daawo qaata qaarna Ilaahay baa u daawo qaada dadkiina reer sanaag ee halka ku wada nool oo dad ilbaxa oo caalamka wax ka yaqaana oo badda mari jiray oo ilbaxa sababta maanta weli uu sii muuqdo isku dirkii isku horkeentii raadkeedii weli uu sii muuqda waxay tahay waxaan la fahmin waxa looga jeeday markii hore dadkan isaga isku dana Ilaahay baa daawo u qaaday buqacadanu ku wada abuuray meel aad kala tegaysaan ma jirto halkaas aad ku noolaanaysaan حي إلى حاوي آدم كل نوليدين حدنا كل نولانيسان إلى قيامه كحو هل كاساوي الشوكتان هالدايس نحطينا لبتينا إذن كا لبتنا عيب كاسي كانوا إذن كا إذن كتالا وانا سو أركتين لبتا نعيب كاسي كانوا إذن كا إذن دحلتحي وانا سو أركتين وحين وحكبر النابائنا سو دافي 10 سنة ما أنت 20 سنة إلى صدق كاسنا أما أنت كدم بيسي فقط وحين وحفوق هذا النابا إلى صور دافي وحين وحفوق هذا النو أيا إلى صور دافي وحين وحكبر النو هو يأرق نمو كهلو وحاول يددكني ولا نمو يوناقنا دنتي سوي عاد يحراد يكالفوغان يسنع عبنا بيس يباب بيسة ويا انت هدي لقرتو انت هدي لقرتو بوس ليسور الماي وحال نعمة كسو بحيسة وحال نعمة كسو بحي دونتا دلكني يوي قبل كان يوي شالي تسيو رياشا نقول هذا لي عقبوين باهر تاكي عقبوين كان مانتا أود وحينو أنه كل قوس كوارا قادم لكن سيدي الوضياشا كولا هذا لي وحوا كتاتابنينا si ay nicmada dalkan taala u iib gasho oo ay u tagto caalamka u gasho oo faa'iidadeedana ay ku soo noqoto gobolka dib ugu soo noqoto waxaad moodaa inay isnacaybkii iyo kala qaybiskii iyo iska horkeenkii ay weli sababta ay u sii maqato weli raadkeeda waxa weeye hanti maguuraana oo marna xagga martay oo weli arrinkeedii aan la dhammaynin oo aan meel la dhigin shirkii u horreeyay halkan lagu qabto Ceeri Gaabo waxa laga qaatay qaraar odayaashii isugu yimi walow aanan dawladdu beriyaa joogin oo أنو مركز وضعي جوجي أنو دن مودني إن أنو كم مقنعنا شركات وأنو كم بقنا هديه ونبادنو يدو شركة حساسية دي كشفتي إن فريسة هي ما فريسة نيان أنو في ذنك كده دالينو شركات لكن شركم تلو ونكتم بوتلي وحكستا أنو قرطوفو كتفسرنا هذا الدولة النهاية تلو ونكتم أو إنمو أيوه تلي قبل كل تلي قرارات قاطع وحكملها يوحي هنتي مجبوران هاي لك لهايستي يوحي دكلاء دككو كلا مغنابة إن دق لودن بي وحتى كدم بيستي إن بارم كانوا كورتي لا يوكيلا دوبا أي ما يصير بيرات كي الجيش اللي هو قبته ودم بي إن سجنا قدون لقى جاري لو وده دنيحي إن وحي هنتي لك لهايستو خصوصا وحي مجبورانا يوحي كلامه الوكل سمري وعيبة إن دق ليسوا عليه مركا واحد مدى
shalayto odayaashiina aad baanu mawduuca uga wada hadal waxaad moodaa iyadoo aan waxba la diidanayn labada geesood geesna aan waxba la diidanayn haddana inay soo baxday arrimo iyo duruuf hortaagan wixii in laysku waraysiyo waxaa ka mid ah dhulkii gees kastaba ha ahaadee muddada la haystay adduun baa galay ceelal baa laga qoday daaraa laga dhistay dhir baa laga beeray maanta markii la yidhi wareejiya warde wixii kharash baa naga galay ee tacwiid wixii naga gashay ma aha dhulkii ma bixinayno laakiin daba wixii naga tacwiidiisii hanala siiyey wixii naga galay meeshii ee kharash ahaa ee maanta ka muuqda dhulkiina ka muuqda dee hanala siiyo tacwiidoodii erey aad moodo garweyn waxaan marka odayaashii shalayta kuma odhan iyaga ee aan ilaa xalay guddoonsanin inaanu guddi u soo diro dhaxa oo arrinkii dib u eegto waxaa jirtay aan idinku maahmaahay sheeko qur-aanka ku jirta qur-aanka kariimkaa ku jirta oo nebi saleebaan iyo aabihii nebi daawuud labadaba calayhim asalaam dhex martay wadidna fashatay fii ardi qawmin waa iga maqan tahay aayaddiiya waxa weeye ari baa galay ari nin leeyahay oo uu ka yar tegey ayaa beer u dhacay beeran oo markaa bislaatay oo maalmahaa in la goosto loo diyaar ahaa ayaa arigii galay jambuu ka siiyey wuu daaqay labadii nina kii adhiga lahaa iyo kii kalea isugu yimi meeshii wafinisoo adhigii dhammaystay oo runay beertii cunay markaasay labadiiba waxay soo tageen nebi saleebaan nebi daawuud bay soo tageen inankiisii saleebaan oo ag fadhiya oo yarina wuu ag fadhiya waxaasaa dhacay bay lahaydna kala xukun beertaydii ninkana adhigiisa galay dambuu ka siiyey beer dacankaasabay hayd beer wanaagsan bay ii ahayd berrito ilaasaa dambaan rabay inaan goosto intaasaan filaayay inay iiga soo go'do dee la kala xukun ninkan iga xukun wuxuu yidhi adhigiisii waar adhigaagii me waa kan qaado adhigiisa bur adhigiisii ayuu yidhi qaado adhigaaga qaado nebi saleebaanoo inan yaroo ag fadhiya oo markaa nebi ahayna inan yara ayaa yidhi aabo aniga taasi cadaalad iiguma muuqata buuri waata qur-aankuna uu leeyahay wafahamnaahaa sulaymaan baanu fahamsiinay argartii xalkeedii sulaymaan baanu fahamsiinay nebi daawuud baa yaabo inankiibu ku jeegto markaasuu yidhi maxaa adiga kula xaqa ee aad ku xukumi lahayd waxaan ku xukumi lahaa ninkii adhiga lahaa ninkii beerta lahaa waxaan leeyahay adhigan hayso muddo ninkii beerta lahaana waxaan leeyahay muddadaas beertii qaado adigu beero maalintay sidii adhigaagu ku cunay ay gaadho ee ay bislaato u yeedh ninkiio beertiisiina ku wareeji adna adhigaagii ka hayso sidaasaanu ku xukumi lahaa buuri waa dee ilaahay baa fahamsiiyey wafahamnaahaa sulaymaana baa layidhi marka maanta guddidan casallaahu an yalhimahum kama alhama sulaymaan guddiganna bal inay xal maanta aan laga yaabo inaanu inteenna badanu muuqan in ilaahay ku ilhaamiyo inaynu guddi caynkaas oo dhaxa oo raganu soo soconaya in loo soo diro oo ay arrinka ka daba tagaan oo meel walba beer walba daar walba wixii la kala haystay mid walba kiiskeeda qaadaan oo ay u joogaan muddo u fadhiyaan oo ay soo dhammeeyaan guddigaasaanu u soo diraynaa insha allah waxaanu filaynaa arrinkaa inuu dabadeeda noqon dhammayno oo ka nasan